magacay waa Naciimo Maxamuud Maxamed waxaan imaaday Dalmar Hospital waxaan imaaday 3 isbuuc ka hor waxaan ka caawinahay xanuun kaliyaha xagooda ka jiray oo muddo dhan aan la wareegahay muddo 12 sano camal ah xanuunkan ka caawinahay oo kelida ka jiray isbitaalo badan aan soo maray dhaqaatiir badan aan la soo kulmay wax talo ugu filan oo qanacisa ma aysan soo siin markaan ka hor annagoo aad u jahwareersan oo aad ugu wareersan gabadha xaaladeeda ayaan dhaqaatiirta qaar ugu dambeysay bil u dambeyn la kulmeen waxaan wada taliyeen inaan dalka gudihiisa xoolo loo qaban karin isbitaalka aan imaaday dhakhtarka waxaa la kulmay doctor kaliyaha caraale talo fiican buu siiyay oo ii sheegay kelida ay ugu sii jiri karin haday ugu sii jirtaan ay mid kala saameynayso magacay waa Naciimo Maxamuud Maxamed waxaan imaaday Dalmar Hospital waxaan imaaday 3 isbuuc ka hor waxaan ka caawinahay xanuun kaliyaha xagooda ka jiray oo muddo dhan aan la wareegahay muddo 12 sano camal ah xanuunkan ka caawinahay oo kelida ka jiray isbitaalo badan aan soo maray dhaqaatiir badan aan la soo kulmay wax talo ugu filan oo qanacisa ma aysan soo siin waxay ula taliyeen inaan hindiyo meel ka safaysan aan qalin aan isku samaynin isbitaalka aan imaaday dhakhtarka waxaa la kulmay doctor kaliyaha caraale talo fiican buu siiyay oo ii sheegay kelida ay ugu sii jiri karin haday ugu sii jirtaan ay mid kala saameynayso dhibaato ay u noqonayso alxamdulillaah taladiisii waa is istiqaaraysay waa qaatay ilaahayna waa igu guuleeyay wuxuu ii sheegay inaan qalin ku gali karo dalkayga hooyo oo waliba isbitaalka Dalmar gudihiisa dhaqaatiir fiican oo joogto la igu sameyn karo qalinkaas waana aqbalay waana la igu sameeyay waa lagu guuleysay hadda xaaladeeda 100% waa fiican aad iyo aad u fiican wallahi ma sha Allah dadka sidoo kale jahwareersan waxaan kula talin lahaa waliba siiba anaga mudug baan ka imid dadkeena wadankaas mudug joogo biyo xaraar iyo waxba iska jira biyo iska qashin ah iska jiraan dadka dhaqaaliyaha aad bay uga cabarayaan waxaan dadkaas ugu baaqi lahaa inay dhaqaatiirta la xiriiraan dhaqaatiir dalkeena laga helaa dhaqaatiir caafimaad oo kaliya aad wanaagsan oo aad iyo aad taqasus ugu ah marka waxaan dhihi lahaa dadaal ha sameeyaan kaliyahooda ka taxadaraan isbitaalkan waxaa la igu adeegay si aan caadi ahayn oo ixtiraam ku jiro oo walaaltinimo ku jirto oo hufan shaqaalaha ka shaqeynaya guud ahaan dhaqaatiirta kalkaaliyaasha dhammaan dhinac walba ay yihiin ayagoo isku duuban aad iyo aad ay soo dhaweeyeen si wanaagsan bay igu adeegeen hadda ma bal soo koobi kara wax afka soo koobi kara ma baahan inta ay qabteen ma sha Allah ma hada ka gaartaan la dhamaantood